shirkan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah qowmiyadaha dega dalka Ethiopia ayaa waxaa soo qabanqaabiyay jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida ay ku heliyaan ururada dowlad deegaanka Soomaalida ee ka dhisan dalkan Australia. waxa way munaasabadan isugu nimid inaan dadkii deegaanka dalka Soomaalida Ethiopia u dhashay jaaliyadiin aan soo yeerno oo aan kulan balaaran la yeelano sidii aad ogtihiinba waxa weeye markii aad hay'adaad u tahay mas'uulaad ka tahay mas'uuliyad ku saareen dadka membersku waxa loo baahan yahay in markii dhowr biloodba la joogo xidhiidh la yeesho dadkii la wargeliyo wixii ururku qabanayay waxa u suurtagalay waxaan u suurtagelin hawlahaas oo dhan in la socodsiiyo ayaa aad iyo aad muhiim u ah. waxaana lagu casuumay qowmiyadaha kale iyadoo halkan lagu soo bandhigay wax u qabsoomay jaaliyada tan iyo markii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia uu soo booqday dalkan Australia kuna dhiirigeliyay in jaaliyadu ay u istaagto dib u dhiska iyo caawinta dadka ku nool deegaamadaasi. waxaa runtii aad loogu farxa ahaa markii aanu baraarug aad u fiican uu ka dhacay jaaliyada ka soo jeeda wadanka Ethiopia ee Soomaalida khaasatan markii madaxweynaha gobolka Maxamed Cabdi Cumar uu noo yimid inaan wada xiriir badan iyo wada shaqayn badan ay naga dhaxmartay waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee qabanayna waxa kamid ahaa intaan anu hadda xusuusto iskuul laga dhisayo Qabridahare oo lacag u ururinay Ethiopia oo isugu timid gobolkeeni arintii maartay qowmiyadaha tii hadda ugu dambeysay ee hadda aan iyadana ku xigtay almost tii saddexaadna waxay ahayd midii iyaduna hadda aan xusayno oo ahayd midii maaragtay gobolku markuu gobolnimadiisa iyo ismaamulkiisa xoog badan ee aad looga faa'iiday markuu yimid meeshan waxaan ku qabanay xaflado aad u fara badan laakiin tii ugu dambeysay waa xafladan oo loogu magac daray maalinta 15ka tir iyo isla markaana aanu abaalmarin ku bixinaynay sidii wanaagsaneed ee ay u dhacday xafladii Hidaar waxaan isla qabanqaabiyay arintan oo mar walbana si wada jira wax u wada qabta ururkan Ethiopian Somali Diaspora Community oo u taagan qadiyada dowlad deegaanka Soomaalida iyo ururka Ogaden Community waa wax lagu ammaano oo aad iyo aad loogu mahadceliyo taas maxay ka dhalatay qowmiyadii Ethiopia inay isbarteen oo isu yimaadaan oo ay wada shiraan. magaalada Melbourne dalka Australia laga aaminsanaa markii hore oo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ka aaminsanayd in ay tahay meel cadow degan yahay oo aad ogtiin lagu weeraray lagu mudaharaaday madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar dagaalkii iyo magaranaysaay halgankii dheeraay aan u galay in aan ubo aan ka hagaajino magaaladan aan joogno ayaa waxay noo suurtagelisay in aan qabano shirar badan waxa haddana shahaadadan aanu siinaynaa Ibrahim Cumar Baafo oo ah Universal TV sida quruxda badan leh oo Mr Baafo uga soo jeediyay oo meel kasta adduunweynaha looga fiirsaday aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay Mr Baafo. madaxda qowmiyadaha kale ee goobta ka hadlay iyo waliba mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida oo qadka telefoonka uga qayb qaatay munaasabadan ayaa ku ammaanay jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia ee dalkan Australia. Cumar Baafo wararka Universal Melbourne Australia.